inta badan runtu way sheegaan waa run. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال ميل كستو هذا الدونك كجوكتان هل كان نقد داونيسان وبرتا فيسبوك يولي بيوتيوب كأن كلنا هاي براين جنال خضبدا برنامج كأني سومالي سيلبرتي نيوز أتكو داون دونتا وحانا كمد وقونا واوين يا سومالي وحالا وحي شيخ وعونا كجر عادي قف بابين بقصة inta badan runtu way sheegaan waa run. maxaa ka jira in Shaadiye Sharaf iyo waliba saaxiibkeed ama saygeeda Cabdifitaax Yare ay kala tageen ogaada caaw waxaan idin haynaa warbixino xasaasi ah oo ku saabsan Shaadiye Sharaf sidoo kale ninkii sheeganayay in uu sheekh yahay kana hadlayay Samiixa Omareen iyo waliba Maslax Mideeye inay caabudaan shaydaanka oo kala hadlay laakiin ugu dambeynna sheegay arrin غير العادي أو وليبا أديكان هدنا داونايا كايا وبينيسا هدابو وامحي برنامج كينا انتو سعودو آيات كو داون دونتان قضبا داس iyo qodobo kale oo xasaasiya ayaad caaw barnaamij keena aad ku daawan doontaan fadlan hadii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa marka hore in aad muuqaalka aad like saartaan kana mid noqotaan kumanaanka kun ee ku xiran breehna social media waxa bishii la soo dhaafay براها bulshada ka jirtay hadal ahaan weyn oo ka dhalatay in ay kala tageen Cabdifitaax Yare iyo waliba Shaadiye Sharaf mar ayaan waxaan ka sameeyay arintaas program aan uga hadlayo laakiin inta badan dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada ku xiran qaasatan daawada Soomaalida caanka ah xoogaa waxa uga jiray tashwiish sababta keentay in laga shakiyo ayaa waxa ay tahay kadib markii arintan baraha bulshada la soo gelinayay iyo waliba Shaadiye Sharaf in ay Muqdisho ka tagto Turkigana aado ayaa isku mar ahaa sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee tuhunka looga qabo labadan shakhsi ama labadan lamaane ee baraha bulshada caanka ka ah kana si afanaaniin in ay kala tageen sida aad la wada socotiinba Shaadiye Sharaf hadda wax ku dhow dhowr bilood waxa ay joogtaa dalka Turkiga hadda ka hor mar waxa yimid ayada iyo saygeeda iyo waliba wiilkeeda yaraanka ah kadibna dalxiis dheer oo ay Turkiga ku galeen waxa ay ku laabteen dalkoodii Soomaaliya khaasatan Muqdisho sida aan idin sheegay Shaadiye Sharaf ayaa hadda muddo ku dhow dhowr bilood waxa ay joogtaa dalka Turkiga sidoo kalena Shaadiye Sharaf hadalada loo tigsanayo in ay Cabdifitaax kala tageen ayaa waxa ay tahay in wax quseeya ayada iyo waliba saygeeda aysan baraheeda bulshada soo dhigin hadii ay noqoto TikTok-ga Instagram-ka iyo waliba YouTube-keeda laakiin caawa halkan waxaan idinkaga xaqiijinayaa in wax kale ay dhacaan ma sheegine in ay Shaadiye Sharaf iyo Cabdifitaax Yare wali aysan kala tagin xiriirkoodana uu yahay midkii hore mid ka sii weyn waraysiyo badan oo labadooda laga kala qaaday ayaa midba midka kale waxa uu sheegay in labadooda ay isqabaan baraha bulshadana laga daayo hadalada beenta ah ee la wareejinayo Cabdifitaax Yare iyo Shaadiye Sharaf hadalkooda mar dambe harraadinina baraha bulshada waxyaabahan xanta ah ee la wareejinayaana waxba kama jiraan haddaba waatana Shaadiye Sharaf oo arintaas ka hadlaysa شادي waxaan ku weydiinaa ko horta waxa la sheegay Soomaali waxa la waxay sheegto waxuna ka jira عادي qof been buqosadaan asta wiiri been u soo baxay ana ka shaafina taas maxaa ka jira horta soo dhawow asxaabtaadana waa soo dhaweynaya mar kale horta wax waxa jirta malal dhaho inta badan runtu way sheegaan waa run laakiin waxa jirta wax malal dhaho oo qofka bini'aadamka ah oo labada qof saaxiib markay yihiin oo kale oo social media badan la isku arki waayo waxa cabir la saarta ama la cabirta inay isku dhacsan yihiin sidoo kale labada ninka iyo naagtana markii la isku arki waayo waxay dadka u maleeyaan inay kala tageen horta waa sax oo maaragtay bariyahan dambe ani Cabdifitaax waxba isla soo duuduubeenin waxbana maaragtay isla sameeyneenin YouTube ka hadee noqoto hadii dhan walba ay noqoto oo social media aan ka isticmaalo horta aniga waxa safaraa iska jiray qofkana markuu safar yahay safar waaba safar qof baxay way mogt qof joogo iyo qof maqan waa way adagtahay sida isku arkaan ama sida isku maaragtay wax isku la duubaan
inta badanna xoogaa shacbaan soo dhawaa ogeed aroosyadana sambuuskana xariif walba oo iskaabal wuxuu isleeyahay xaajidaada maxna sambuuska ku kariso marka aroosya badanaa tumaayay waa baxay waxaan tagay Nairobi aan tagay xoogaa waxaan soo joogay 22 bari adala 7 bari ada bil ku dhawaada soo joogay isla markii haddana meeshan waxaan u imaaday howlo shaqo sidaad ogtahay adigaba aan u imaaday marka xagga markaan tagaba gurigeyga 10 bari miya 8 bari aan joogay isla markiina waan soo noqday waxaan imaaday Turkiga marka intaas laba qof oo adiga 40 bari amba 45 bari kala maqanna waa iska dareemi kartaa ma ogtahay waxaa la isdhihi karaa sax waaye waa isfureen isdhihi kartaa maxaa ku dhaca Shaadiye Cabdifataax bariyahan wax mas la soo duubaan wax la isweydiinay marka waxaa isdheesaa labadan way kala tageen maadaama oo dadka social media badanaa inta la isguursada la kala tago horta waxaa waa ana Cabdifataax ma kala tagin marka runta laga hadlo alxamdulillah beenna inaan maaragtay sheego ma haboono ma fahantay qof laani Cabdifataax waan isqabnaadee ugu dambeyntiina ninkii maalmahan baraha bulshada ay Soomaalidu ku kulanto hadii ay noqoto TikTok, YouTube iyo waliba Facebook haystay ee ku eedeynayay dhalinyaro caan ka ah baraha bulshada oo ay kamid yihiin Maslax Mideeye iyo waliba Samiixa Khaliil ay caabudaan shayaadiinta eedeyntaas kadib ayaa waxa ka soo hadlay Samiixa Khaliil iyo waliba Maslax Mideeye ayaa maanta bartiisa YouTube-ka daqiiqada kooban uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in Ilaahay dartiis uu iskaga cafiyay bil Ramadaanna ay tahay laakiin maalin dambe qof asagoo kala ah ama asaga in uusan ku xadgudbin Samiixa Khaliil oo ayadana muuqaal soo dhigtay barteeda YouTube-ka ayaa waxa ay ku sheegtay waxyaabo aad iyo aad u adag taladii aan siinay ninkan isku sheegaya sheekha ayaa qaatay laakiin markii dambe muuqaaladii uu uga hadlayo dhan arintaas ayuu ka bixiyay waxaana kamid ahaa in culimo ay soo waceen ayna dhaheen dadkan waxyaabahan ay ku sheegaysid cadeemo uma noqoto ee faraha iskaga qaad meel publicana arintooda waa uga hadashay waxaana la rabaa in si publica aad u raali geliso Samiixa Khaliil iyo ninkan sheeganaya in uu sheekh yahay hayb ahaan way isxigaan waliba waxaad afkiisa ka maqli doontaan ninkan ku eedeynaya Samiixa in ay caabudo shayaadiinta hadalka Samiixa Khaliil hadii aan idin soo koobo waxa ay sheegtay in aysan weligeed aakhiri iyo adduunba aysan cafin doonin maxaa yeelay ayadoo qof islaam ah ku dhashay kuna dhiman doona in uu ka been sheegtay uuna ka dhigay qof shirki iyo waxyaabo noocaas oo kala ah la yimid haddaba waa kana ninkii oo isbedelay bal ila dhageysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saxafi waa ku salaamay fursad cusub oo aad bariiskaaga ku soo ridato ayaan ku bilaabay halkana laga geeraya u sheegay isagana inta ka sokow aniga waxaan ahay kii runta sheegi lahaa ha yaraato ha weynaato Samiixa Khaliil markii hore waan ka qalay waxa isdhahay waa gabadh sidaas oo dhan ha u sii magaranaysaay dulaynin oo sidaas oo dhan magaranaysaay beerta ha u sii gelinin laakiinse maadaama xitaa wax kale iska dhaafa anigoo nin rag ah ay igu tilmaantay dil bal ila arkaa cadeymahan aan ka keenay magaranaysaa Samiixa Khaliil dadkan uga jeedaan waa Samiixa Khaliil historygeeda Instagram-ka maalmihii aan sheegay inaan cadeyn ku keeni doono kadib waxa ay soo saaratay historygeeda ishaas halkan kalena waxaad ku aragtaan sawir gidaar ku sawiran oo ah naaga jin ah oo sida balanbaalista oo kale u labisan dhegteedana waxay ku xidhantahay waad aragtaan iyo silis dheer oo tilmaamaya ishii saanfarta hadda idinku fiiqay waxay tiri maadaama sadaqa u ururiyay dadkayga ayuu ninkaasi igula coloobay kugulama coloobin sadaqa u ururi waa camal wanaagsan oo la sameeyo laakiin saanigu camaladaada xun ayaan banaanka keenayay ee aad dadka ku sixrayso Diriis la Cabdi walaalkay ha xanaaqin waxba ha isa cabato minkaagama baahni kaliyaata waad sixran tahay inaan ku dhaho ayaan rabaa iscilaaji isquraan saar waa lagu sixray haddaad rabto inaad ogaato sixirkaas lagu sixrayna wallaahi waxaan kuu sheegayaa koobiyaa soo qaada habeenkii intaadan seexanin suuratu naml aayadda 30 iyo aayadda 31 waxaad ku akhrisataa 7 jeer kuna tufo mar kasta cab intaadan seexan ka hor adkaartana akhriso wallaahi wa rabbil kacba waxaad ku riyoonaysaa qofka ku sixray haddii aad sixran tahay
beenna kuma sheegayo tijaabiya idinkuna inta ka sokow waxaan rabaa inaan halkan sidoo kale aan ka salaamo dad badan oo ku bariiseeyey oo magaranaysaa buunbuuniyey muuqaaladii aan soo duubay magaranaysaa aan dadkaas ku wajahay keligoodna maaha waxaa soo socda kuwa badan saan hore uga dhawaajiyey horta kuwan aan ka farxalano kadibna kuwa kale ayaanu gudbaynaa isoo cay isoo ammaan labadaas midna waxba iima tarayso waxbana igama dhimayso waxaan kusoo koobayaa hadalkayga anigu waxaan ahay libaax wallaahi cid aanan ilaahay ahayna kama cabsado kamana cabsan doono kumana soo korin meel la isku cabsiiyo ama magaranaysaay keli ma soo korin aniga garab waan haystaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaana garabkayga ah kasoo kow dadkayga haddaad leedihiin Samiixa Khaliil waxaad ugu dhegan tahay waa gabadh ogaadeena saasa waa inaadeertay iyadoo inaadeertay haddana xaqo inaadeer iyo inaabti ma yaqaano hore u socda ku salay nabiga cadeymaha labaad ee tugaysan hadda xilligay idin tahay oo noori Soomaaliya intaas kadib waxaan idin weydiinayaa adinkaan hadda idaawanaya ninka noocan isku badbedelaya sida aan horay idin sheegaba ma waxa uu raadinayaa in maalmo baraha bulshada magaciisa looga hadlo sidoo kale ma la dhihi karaa waxa uu raadinayaa attention daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii Somali Celebrity News oo habeen walba iyo xilli kasta aad ka daawataan channelkeenan Burhan Channel sidoo kale waxaan idinka codsanayaa in aad marka hore muuqaalka aad like saartaan aadna ka mid noqotaan kumanaanka kun ee ku xiran baraheena YouTube iyo waliba Facebook